السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD drafting course lecture-nan ayaa video aan kusoo qaadanaynaa oo ka hadli doona using rotate and mirror tools sidee loo isticmaalaa rotate oo ah shay in la wareejiyo iyo mirror sidee isaga mid ka soo horjeedo oo sida muraayadi oo kale ugu eg sidee u sameyn karaa. Okay, meeshan software-keena no furan. So marka meeshan line ku haysanaa rotate waa kanaha marka joogto qaybta modify halkaan ayuu ka muuqdaa rotate kan ka hooseeyna waa mirror. halkan waa kasoo dooran kartaa mirrorkan halkan waa kasoo dooran kartaa sidoo kale kan rotate-ka wuxuu u yaqaanaa RO ayaa leedahay waa rotate sidoo kale MI-na maxaa leeyahay waa mirror M kaligeed waa move MI-na waa mirror sidaas ma isticmaali kartaa. Okay, waa isku dhex wadi doonaa insha Allah. So marka rotate-kan doortay wuxuu yiri marka shayga aad rotate ku sameynaysa ama wareejinaysa ii sheeg waa kana aan leeyahay line-kan waaye. Okay, kadib waxaa leeyahay enter waxaa leeyahay space wuxuu ku leeyahay specify base point barta aa ka qabanayda ii sheeg xaggan waa ayaa leeyahay mid ku xisaabtan marka hadda rotate la sameynaa waa u jeedaa rotate-keen meesha ka imaanaa waa taqaanaa wuxuu u wareejin doonaa anti clockwise oo u yaqaano positive dhinacan x axis oo positive ana laga xisaabsan u soconaa marka waxa iska gelineynaa adiga angle 90 ka yar mesela 70 degree. Okay, hadda hadii aan line kala sameeyno oo xagashana cabirno laazim waxa ku soo baxayso inay tahay 60 degree. Okay, linear way sorry linear marna anaga angular rabna xagala cabirina. Okay, so marka wakaas 70 degree. Okay, marka sug marka 70 degree oo hadana waxa rabaa u fiirsiyaa oo iska tirin iska dhaaf basidii ahaato waxa sameeynaa hadana line kan sidiis ku soo celiyo mesela undo de marka horsaan waa sax marka rabta marka clockwise marka rabta inaad ka dhigto hadda anaga dhanka wuxuu u wareejin doonaa saacada cagsigeeda sax dhanka clockwise oo negative ah oo qaabka saacada u wareegta ah hadaa rabana qiimaha bis waxa ka dhiganay negative qiimaha waxa siinay negative minus ku daree tusaale marka rotate la yahay base point-iga waa kanaha fiir marka hadda meesha 70 aan gelinay waxa leeyahay minus 70. Okay, enter waa u jeedaa marka 70 way laakiin x axis lagu xisaabiyo clockwise ana loo wareejiyo ina intaas ila fahanto waa rajeena rotate wax ka sanas oo kale rotate ugu sameyn kartaa kan oo kale hadda tan shaygan rotate waxa waa qabatay shay waa dooratay base point-iga waa kan 90 degrees kare buu taajina vertical oo ka dhiga. Okay, so marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa rotate 90 kaliya ma ahana inta rabtaa wareejiye tusaale ahaan hadda dhahdo 270 wareejiya uu soo wareega. So marka hadda sidoo kale u isticmaalaysid rotate r waa kanaha RO aan dhahe ayaa dooranaysa enter leedahay shaygan oo kala qabanay waa rotate garena ayaa leedahay hay enter dheh kadib bartaan qabo kadib waxa iska leedahay 90 degree. Okay, saas oo kale waa marka rotate-ka inta adiga u baahan tahay baahidaada ayaa wareejinaysa. waxaan noogu xiga marka mirror waa kanaha. Okay, waxa sameeynaa marka waa soo dooranay mirror waa soo dooratay shaygan raba asaga mid u eg oo muraayadiisa ina sameeyo. Okay, waxa sameyn marka select object soo ma dhihin shaygan wada doorana kadib waxa leeyahay enter kadib wuxuu yiri fast specify first point of mirror line meeshaan level leeyahay inay madax isla galaan iska soo horjeestaan rabaa. Mirror line wuxuu ka wadaa line-ka kala qaybin doono labada shay iska soo horjeedo waa labada shay isku eg oo mirror-ku isku ah line-ka u dhaxeeya laha. Okay, so marka aniga bartaas aaba leeyahay. Okay, waa u jeedaa hadda muxuu sameeyay fiiri waxa u jeedaa line-ka inaad toosiso waa marka toosiso laakiin hadda dhinacan aado waa ka mirror-ku wuxuu sameeynaa dhinacaas kale u geynaa. Okay, marka muhiim waa meesha aad mirror-ka u rabto waa xagee waa inaan qaabkaas noqotaa. Mirror-ka aniga waxa rabaa horizontal waa asaga mid kale horizontal ina jiifiyo hadii mid vertical soo jiifo kale mid yani la eg qaabkiisa kale oo dhinaca hay hadaa rabana dhinacaas aada. Okay, hadaa rabo mid kale oo yani oo vertical qaabkaas. So marka anaga waxa rabnaa mirror-ka saas inuu ku ahaado. Okay, kaliya markaas sida marka laba option oo ku soo bandhiga wuxuu ku leeyahay shayga reference-ga ah ama source-ga ah oo kan ah ma ku daaya oo ma ka tirtiraa yes aad hadaa rabto inaad iska tirto kii hore original-ka yes aad leedahay laakiin hadaa rabin in laga tirtiro no aad leedahay. Aniga marka waxa leeyahay no intan waa ka dooran kartaa halkan waa ka dooran kartaa. Okay, so marka uu ku deynaa so marka meeshaan laba shay mirror ah ku yaal. Okay, control z dheh waxa sameeynaa marka hadda marka base point-iga hal meel ka wada dhexso. Okay, hadda waxa rabaa bahashan wareegan isha ah inaan koobiyeeyo oo
mid lamid ah xaggan aan garab dhigo okay waxaan sameynaa marka mirror ayaan dooranaa shaygu waa ii dooran yahay mirror line fast pointigiisa dooro idhaa mirror line marka maxaa waaye waa line-ka labada show muraayada isku ah ama iska soo horjeedo isku eg shayga u dhaxeeya waa aniga marka line-kaan dheer sida u jeeda line-kaan dheer meesha centerka ah rabaa inay isaga mid noqdaan marka hadhow muxuu dhici doonaa circle-kan wuxuu dhici doonaa dhankan midig isla position-ka kan uu dhaco kala dhaxaa sababtoo ah midpoint-kan ka qabta okay marka intaas ilaa click markaa siiyo maxaan sameynaa marka hoosaan usoo jiidaa hoos la u fiiri okay haddaa dhinacaan dhahdo intuu aadaa dhinaca kale ma jeedaa soo marka aniga meeshaas midpoint-ga ah ayaan ka qabtay waxaan sameeyey halkaasaa click ku leeyahay source-ga markaa tiraa yes haddaa tiraa kanaa baxaayo fiirso hadda tusaale aan waa ku tusaa yes aan dhahay kanaa tegay ma jeedaa marka control z e dheh kan soo qabo mirror dheh xaggan midpoint-ga iga qabo okay no ha iga tirin soo marka labadaana haddana rabaa fiiriya مثلا tusaale marka dhinaca kale rabaa haddana kana waxaa rabaa haddana iyo kan labadaba mirror ii dheh markaan midpoint-ga ma qabanaya midpoint-gan kale aan qabanaa fiirso midpoint-gan kale okay waa ujeedaa sax sidaas oo kale u sameynaa hana iga tiraan leeyahay okay soo marka qaabkaas waa qaabka mirror loogu sameeyo waxaan rajaynaynaa inaan si fiican u wada fahnay lecture-keennana halkaas ayaan kusoo gaabinaynaa maantay waxaa inoo baranaa lecture-ka kan xiga oo ah lecture 10 insha Allah